السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعقولة إن دكان سبلمنتيد لو إيبي أتصوّر شو طبعًا. هذا أنت أقول إن أتكلم هذا تحي إن سبلمنتي أديبستو أما ميزانك إسكريت أما جيرك لسه لكن أذن جرنين مال أتوحك بالعوض. وده كليه كوفرًا وإن خفك سبلمنتي دكان كجوجا أتوريسته طبعًا ويكون أكسنا لها. هذا إسكود هي إن معلومات كعودن أتسيسو لكن نتيجته أي نقطة خفكو inuu kaliya ka iibiyo supplementiyada asaga u dhaqaaqi waayay waxaan maanta inaan kula qaybsado 6 supplementi dabcan hadiiba ay ka go'anta inaad supplementi isticmaasho ka caawin doono jirkaaga inuu miisaan ka rido at the same time jirka ku dhiso dabcan hadii supplementiyada aadan isku fiicneenna waxaan ku siinaa insha Allah taala cuntooyinka bedelka supplementigaas ku gali karaayo hadii 6 supplementi booskooda aad buuxiso waxaad dareemi doontaa 15 bir gudaheeda in metabolism-kaaga oo aalada kaliya fududeyn karto jirkaaga inuu faatka gubo isbiid uu ku kaco in hormonaadkaaga balance ay noqdaan dabcan wareerka tirada badan ay ku jiraan ay ka baxaan in energy-gaaga uu cirka u kaco aadna dareento 15 bir gudaheeda inuu physiologically jirkaaga isbedel weyn ka socdo iyo kama dambeyn in jirkaaga ay u fududaato marka uu jiifo iyo marka uu soo jeedo in uu faat gubo haddii supplementiga ugu horeeya aan ku bilaabana dabcan waad garanaysaa proteinka wuxuu dhisaa lean muscle-ka dabcan muruqaha mar walba oo aad weight loss ku jirto waxaad ogaataa jirkaagu wuxuu meesha ka saarayaa faatkaaga mar walba faatkaaga meesha ka baxana maqaarkaaga wuu jilcaya booskaas waxaa la rabaa mar walba wax buuxiyo in loo helo waxaana kaliya buuxin karo qofka inuu lean muscle-kiisa uu dhiso proteinka marka wuxuu ka caawinaa inuu lean muscle-kaaga kor u qaado proteinku wuxuu controlaa gaajada tusaale raaqsina hadii waaga marka uu ku bariyo quraacdaada ay noqoto quraac high protein ah 30 ila 35 gram protein ama 40 gram protein afar xabo u kuna cun hadii aad rabtana yogurt iyo xogaa yaro fruit la isku daray ku bilow amaba intaad mashaari karsato hal qando way protein ku dar mar walba oo quraacdaada aad ku bilowdo high protein diet waxa fudud qadada iyo quraacda inta u dhexle in uusan jirkaaga u dhuumanin cuntooyin bari aad ka shalaynayso inaadan macaan raadinin craving-kana aad ka badbaado oo mar walba oo aad aragto xitaa shaahiyada suuqa lagu gado ay dadku inta badan markay barnaamijku jiraan ay uga dhaxbaxaan u noqdo wax aadan rabin amaba aadan raadinaynin proteinku wuxuu boost gareeyaa metabolism-ka dabcan wadada kaliya ku fududeyn karto in faatkaaga la soo faqo kadibna tamar loo bedelo cilmi baaristu waxay isku raacday dadku inta badan in proteinka jirkooda loogu talagalay si toos aysan u wada qaadanin hadii aad maanta 100 kiilo tahay ama hadii aad 90 kiilo tahay proteinkaagu waa inuusan ka yaraanin daily marka aad qaadanaysid 90 gram ilaa 100 gram proteinku maqaarku hagaajiyaa cidiyaha ku qurxina timahana wuu bixiyaa mar walba oo waxay dhahan proteinkaaga maalinlaha lagu talagalay aad garaacdo waxa fududaada fat loss-ka in uu wax sahlan noqdo protein nooca isticmaalaysa marka hadii supplementi aan ka hadalno whey proteinka ya number 1 ah waxa number 2 soo gala collagen-ka dabcan collagen-ku looma xisaabo ama lama xisaabsado sida proteinka caadiga jirka uu qaadanayo oo kale tusaale radiyaan ku siiyo hadii maalinkii 100 gram protein ina qaadatid aad rabtid 10 gram ee collagen-ka aad qaadanaysid ha ku dhex darin because lama xisaabiyo collagen-ka laakiin still wuu wanaagsan yahay haday noqon lahayd maqaarka haday noqon lahayd jirka inuu adkaadiyo haday noqon lahayd cidiyaha iyo timahaaga waxa kale oo isticmaali kartaa any protein oo plant laga sameeyay ama dhirta laga sameeyay dabcan hadii uu ku dhibaayo caanaha ama waxyaabaha caanaha ka yimaado sida whey protein ko kaleete hadii aadan supplement rabina proteinku dabcan meesha ka helaysa waa taqaanaa chicken ka helaysa hilibka guduudan aad ka helaysa kalluunkana ka helaysa laakiin inta badan supplementiga waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay waxa kamid ah wax yar oo aad isticmaashaa waxa laga yaabaa 25 ilaa 30 gram oo protein inay ku buuxiso halka 200 gram oo chicken ah aad ka helaysid 30 ilaa 40 gram oo protein ah dabcan lagana yaabo dad anaga naga mid ah in aysan dhameyn karinba waxaan soo gabagabeynaa marka hadii mar walba proteinkaaga uu low noqdo waxaad ogaataa fat loss-kaagana low noqona mar walba proteinkaaga high noqdana fat loss-ka automatic uu noqdaa supplementiga labaad ee dabcan qof walba aan kugula talin lahaa
أنا دي كرو non negotiable وحلو باهن هاي إن جدول كوكوسو درنو وفيتامين D3 K2 فيتامين D3 K2 وحو بوست جريا طبعا هرموناتك بدنا وحي مليان فيتامين D3 إن وكلية يهاي فيتامين لكن waxa ogaataa jirkaaga wuxuu u sameeyaa sida hormoonaadka kale cortisolka iyo testosteronka sida loo sameeyo ya asagana loo sameeyaa wuxuu improve gareeyaa moodka dareenka qofka sidoo kale tana wuxuu aad uga qayb qaataa qofku baruurta gaar ahaan waxay dhahaan baruurta qaybta dhexe ee caloosha gasha wuxuu kaloo sameeyaa calciumka wuxuu u direct gareeyaa amaba uu u diraa inay lafahaagu gaaraan supplement haddii aadan rabin dabcan vitamin D3 gu waxaad ka helaysaa K2 gu kalluunka kaleete ukunta dabcan qaybta jaalaha ah cheese-kana qaybo kamida waa laga helaa dabcan qoraxdana oo ah qaybta ugu muhiimsan waad ka helaysaa vitamin D gu waa sidii hormoonka kaleete hadduu mar low noqdana waxaad ogaataa nolosha qaybo badan oo kamida haddii energy-ga noqon lahayd iyo haddii wax kale noqon lahaydba low ay noqdaan waana dareemaysaa naf ahaan in culays badan uu ku saaran yahay vitamin D gu actually waa hormoon marka uu low noqdana wax walba oo nolosha ku saabsan way adkaadaan energy-ga hadduu noqon lahaa moodka hadduu noqon lahaa iyo haddii weight loss-ka noqon lahaydba supplement-ga saddexaadna waa magnesium-ka haddaa rabto inay hurdada kuu wanaagsanaato haddaa rabto stresskaaga inuu hoos u dago dabcan masoladaadana recovery helaan waxaad ogaataa mar walba oo aad soo aalamiitayso mar walba oo aad jiimka tagto oo jirkaaga aad soo garaacdo waxbaad burburinaysaa laakiin mar walba aad gurigaaga timaado nafaqooyinka jirka uu u baahan yahay uu ka helana waxbaad dhisaysaa soo marka qayb weyn uu ka qaataa magnesiumku in aad recovery hesho maalinka xigana jiimka marka aad tagto ee ku fududaato inaad aalamiitadu si tartiiba oo nadiifa adigoona daal iyo xanuun uusan jirkaaga dareemeynin aad qaadato blood sugar control ku ka qayb qaata magnesiumka waxay dhahaan ilaa 600 oo processor waxa jirto kaliya magnesiumka jirkaaga uu ka qayb qaadanayo hadii marka stress ku wareeriyay oo aadan seexaneenin recovery-gana kugu adag yahay oo aalamiito shalay aad soo sameysay 3 ilaa 4 maalin ee jirkaaga haynayso magnesiumka waxaan rajeynayaa inuu si fiican kaaga caawiyo cuntada marka aan ka hadlayno magnesiumka waxa laga helaa pumpkin seeds-ka waxa laga helaa dark chocolate-ka sidoo kale tan waxa laga helaa looska qaybtan almond-ka iyo qudrada cagaaran dadka inta badan hadii aad aragto stresskooda inuu high yahay waxay dhahaan 90% magnesium-kooda ayaa low ah supplement-kan afraadna waa electrolyte-ka dabcan waxa laga yaabaa hadda electrolyte maqasho inaad istiraado anigu athlete miihi ma ordo aalmiito ma sameeyo la iguma talagelin dabcan inta badan waxa isticmaalo dadka athlete-ka ah laakiin adigu shakhsiyan electrolyte ma u baahan tahay electrolyte-ku wuxuu ka qayb qaataa dhaqdhaqaaqa murqaha garaaca wadnahaaga iyo jirkaaga inuu energy ama tamar uu soo sii daayo si faadka loo gubo in jirkaaga mar walba ee biyuhu uu haayo iyo fikirkaaga inuu noqdo mid clear ah oo waadax ah hadii aad ogtahay hadii kale nerveska waa sidii korontadii oo kale hadii jirkaaga uusan haysanin marka sodium ku filan potassium ku filan iyo magnesium ku filan waxa ku adkaanayso signaladaas uu diri lahaa nerveskaaga inuu diri waayo mar walbana energy-gaaga uu burbur ku dhaco ama crash ku dhaco hadii supplement ahaan dabcan supplement ahaan loo isticmaalaa aadan kareenin waxaad isticmaali kartaa cusbada sida midda pinkiga ah Himalayan salt dabcan iyo sidoo kale cusbada badda spinach-ka iyo khudrada kale cagaaran biyaha coconut-ka hadii aad isticmaashana dabcan u maleynaa in biyaha qumbaha yihiin electrolyte fiican aad ka helaysaa hadii mar electrolyte-kaaga uu low noqdo metabolism-kaagana waa low period wax hadal kama taagna supplement-gana shanaadna waa omega 3 fish oil ma uga baahan tahay dabcan inflammation-ka jirka ku jiro hoos lagaaga dhigo waxa la dhahaa wuxuu boost gareeyaa metabolism-ka yani si baruurta jirkaaga loo gubo 14% number weyn ma ahan laakiin waa still number wax badan ka caawin kara wuxuu caawiyaa brain focus-ka dabcan ina wax si fiican u diira saarto focuskaaga ama feejignaantaada uu joogtay mid joogteen ah ay noqoto joints-kaagana recovery fiican
يسيا طبعا واحد أهان وسيدي أويل كجارية لجو شوية أو كلته كلون كالجه هلا لوز كالجه هلا إن وحالجه هلا إن فلاكسيد كالجه هلا أوميجا 3 ولي قاعد ميد مالكو قرب مرة بو inflammation كأوهاي هاي weight loss كimpossible نقطة ما صورة جلوي أتكاتا أوميجا 3 أنا بوس كوجو نقطة وحتى إنه inflammation كجيركا كيريو سي هادو تجيركا وفضاته إنه فات كأوسي ترتيب إسكاجا جوجو supplement وجودن بيه أنا كان لحاد طبعا gadaal waxaan ugu dhigay waa supplementiga aan dhihi karo maanta shanta aan soo sheegay uu ka wada muhiimsan yahay creatine-ka 100 sano la baaray supplementigan oo maalinta ka dambaysa waxa la soo saaraa wax cusub oo macno weyn ku sameynayo wuxuu dhisaa lean muscle-ka awoodu jirka siiya sidoo kalena metabolism-ka in la boost gareeyo jirkaagana uu si fiican faatka u gubo qayb weyn u ka qaata strength ku siina marka gym-ka joogto awoodaada kor u kacayso culayska aad qaadaysidna maalinta ka dambayso korad u qaadaysa haddii aad creatine-ka isticmaasho hadda waxaa la soo sheegaa marka oo cilmi baaristii ugu dambeysay ay sheegaysaa inuu improvement ku sameeyo inuu kor u qaado xitaa maskaxda creatine-ku da'da wuu ka qayb qaataa 50 jirada 60 jirada iyo 70 jirada xataa jirkoodu wuu wanaagsan yahay waxayna dhahaan waa the only supplement or research-ka ugu weyn lagu sameeyay marka supplement-yada laga hadlayo yani ayada ugu badan wax research lagu sameeyay hilibka gaduudan iyo kalluunka iyo tunahaba waa laga helaa laakiin marka laga hadlayo qadarka marka aad ayadu si supplement ahaan u isticmaalayso waxay kaga wanaagsan tahay ama ay kaga fududahay in hilibkii aad ka raadiso qaando yar ba 5 gram aad ka qaadatay jirkaago dhan ku filan halka hilibku grams ina isticmaashid uu rabo si aad u gaarto qaandada yar inta aad ka helayso waxay dhahan 1 pound طبعا waxaan u maleynaa 1 pound ma garana gram aan wuxuu yahay oo hiliba ina cuntid yaad waxaad ku buuxin kartaa qaandada yar ee aad hal mar qasato faa'iidada aad ka helayso soo cid cuni karta ma laha marka intaas oo hilib ah waana sababta keenayso in creatine-ku ku wanaagsan yahay supplement ahaan in loo isticmaalo creatine-ku looguma talagalin dadka jirka dhisto waxa loogu talagalay qof walbo rabo inuu dardar geliyo fat loss-ka at the same time-na tamar jirkiisa ku filan inuu helo raba mar walba oo supplement-yadaas aan ku soo sheegay ee 6 ah booskooda aad buuxiso iyo aamin waxa sahlanaanayo kuna fududaanayo fat loss-ka in aad si tartiib ah ugu raaxaysato dabcan qaarkiin waxa laga yaabaa inaadan awood u lahayn ama aadan ba iibsan karinba laakiin waxaan cuntada ugu soo daray mar walba oo aad kan weyso sida yaxaaskii oo kaleete afka haddii aad la weyso inaadan dabada la weynin iska ilaali lacagtaada iyo qarashkaaga inaad ku bixiso supplementyo beri aadan waxba kugu soo kordhinaynin maanta suuqu wuu iska af balaaran yahay wax walbana wuu yaalaa haddii aad mar ku dhacdidna berito shalayto badana ka soo gaarayso ina suuq markaad soo gashana ama dukaanada aad tagto waliga ha weydiinin waxa aad u baahan tahay qofka iibiya liana wuxuu bacda kaaga soo buuxinaa inta badan haduusan qofka ilaahay ka baqeenin supplementyada suuqa ka soconaynin gaar ahaan kuwa dukaankiisa aanan waqti dheer laga iibsanin uu rabo inuu xaraasho amaba dadka kale uu ku kharijiyo isku day foundation-ka asaaska mar walba inaad dhisto inaad ogaato gym-ka markaad aadaysid waxa aad ka dhex sameynayso dukaanka supplement-ga waxa aad ka soo iibsanayso sidoo kale tana supermarket-ka markaad aadaysid waa ina ogaataa cuntada aad u baahan tahay maanta maadaama ay tahay maalinkeeni labaad challenge-gan wuxuu noqon doonaa insha Allah taala berito caawa laga bilaabo inaad galaas biyo ah sariirta dhinaceeda dhigato adoo ku daraaya cusbooyinkan aan ku soo sheegay mid kamid ah ama Himalayan salt ha noqoto cusbadan pinkiga ah ama cusbada badda subax markuu waagu ku bariyana adoo afkaaga qaba oo aan waxba cunin inaad ayada ku bilowdo oo walaalka ko sabriyo dabcan ka cawsanaya mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad in aad nagu soo biirto si fiidiyoyo noocan oo kale ah oo dhiigaaga dhaqaajinayo sidoo kale tana isbedel aad ku sameysay aan kugu soo gudbino. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.